khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaan weli wax xal laga gaarin waxaana khilaafku uu ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil oo ahayd sarkaal ka tirsan hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA. xalinta khilaafkan waxaa ku fashilmay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed. dhinaca kale xubnaha beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya ayaa qoraal ay fiidnimadii xalay soo saareen ugu baaqay labada mas'uul in khilaafkoodu ay dhinac iska dhigaan oo ay culays ka saaraan arrimaha doorashooyinka. haddaba waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya siday u arkaan khilaafkan soo ifbaxay ee ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa kuwan iyagoo falanqeynaya. walwal aad u fara badan oo ballaaran bay nagu haysaa. waxaad moodaa dalka Soomaaliya inuu mugdi galay. waxaad moodaa future-ka ummadda Soomaaliyeed in mugdi la geliyay. waxay ku sugan tahay xaaladda dawladda Soomaaliya yaa waxay tahay wax aad looga yaqiiqsado oo dadkii mas'uuliyiinta ahaa ee la rabay inay gaarsiiyaan geedka baarkiisa inay gaarsiiyaan ayaad waxaad moodaa kuwa magaranaysa hanjabiyey ummadii Soomaaliyeed ee iyaga sugaysay waxayna ku ciyaareen qayimkii dawladnimada Soomaaliya. waayahay markaan dib u milicsano qaabka uu ku soo bilowday khilaafka waxa uu salka ku hayaa sarkaal ka tirsanaa hay'adda nabad sugidda Ikraan Tahliil markaasoo uu soo ifbaxay khilaafka u dhaxeeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. marka dhanka dhaqanka laga fiiriyo oo kale dhaqanka Soomaalida kaalin intee leeg ayay ka qaadan kartaa in xal loo helo? horta dhaqan iyo maxaan ku dhahaayay nabadoonnimo iyo islaax iyo wax isbaysa lama siinin. gurtii dadkii waa la wada caburiyey ummad la wada caburiyey oo aan space la siinin oo hadday tahay nabadoonkeeda hadday tahay suldaan iyo dhaqan iyo odayaal hadday tahay wax space lama siinin. anigaa idhi anaa qarsaday anigaa qumsaday anigaa qaatay wax intaa kaliya ku eg unbay hadda ku sugan tahay. marka space lama siinin dadkii nabadda jeclaa iyo dadkii maslaxada jeclaa iyo dadkii dhaqanka Soomaaliyeed ee darsi lahaa inta midna. waayahay waan kugu soo noqonayaa Maxamed Ibraahim Guuleed soo dhaw. okay xaaladda hadda taagan waxa weeye wax la abuuray waxaana abuuray ninkii wadanka ra'iisul wasaaraha looga dhigay mandate-kii la siiyay markii madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda iyo wada fariisteen madaxweynaha 17 September waxyaabihii lagu heshiiyey inuu fuliyay ahayd. laakiin hadda sida muuqata waxa weeye wuu ka gudbay xeerkii loogu talagalay wuxuuna aaday meel aan loo gelin iyo maaragtay inuu la safto niman 4 sano wadanka maaragtay laga xakameynayay oo maaragtay wadanka inay dumiyaan rabay. arrintaas ayada marka waxa weeye waxa xaq leh dhanka madaxweynaha ayaa ku xaq leh in maaragtay arrintan uu soo farageliyo. warqadii uu shalay soo saarayna waxay ahayd warqad xilligeedii iyo waqtigeedii ku soo baxday mar hore ayay ahayd in maaragtay uu xanibo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha markuu arkay inuu xanimo awoodaha maaragtay xad-dhaafka ah uu adeegsanayo uusan xaq dastuuri iyo mid maaragtay xisi iyo aqliyan ama diiniyan midna uusan siinaynin. marka dhanka doorashada laga fiiriyo oo kale ma jiraa wax shaki ah ama walaac ah oo adiga ku muuqda? aad iyo aad waxaa ii muuqda shaki weyn sababtoo ah waxaa weeye gacantii daahiran baa maaragtay wax daahirto. waxaa weeye ra-iisul wasaaruhu waxaa weeye ma noqon kara dhexdhexaad. marka waxaa hadda mudnaan leh warqadii xalay ay soo saareen nimankii ii sheeg maamul goboleedyada in ayaga maadaama marka horeba awoodda doorashada ayaga ay gacantooda ku jirtay in ayaga waxay soo qorqoran karaan ay soo qortaan wadankana xaaladda hadda uu taagan yahay stageka uu taagan yahay laga gudbiyo. waxaan siinayaa Fuaad Axmed oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed. waxa meesha hadda ka jira wadanka Soomaaliya waa hawl aan u wanaagsanayn qarannimada iyo wadankii ka soo kabanayay burburka baahsan oo waqtiga fog qaatay. taas waxaa loo sababeyn karaa labada dhinac oo ishaysa oo markii koowaadna ahayd hal dawlad oo wada socoto la yiraahdo xukuumaddii nabad iyo nolol la yiraahdo. dib dambena markii ra'iisul wasaaraha maantay oo uu magacaaban yahay waqti laga joogo sanad waqtiyada dambe kadib markii heshiiskii oo doorashada lagu heshiiyey oo inuu hogaamiyo qabsoomidda doorasho xor xalaal daahfuran la isla wada ogol yahay inuu qabto midii ahayd markii asagoo ku guda jira ra'iisul wasaaraha hawshiisa ku guda jira ayaa moodaa ra'iisul wasaaraha in uu ku dhaqaaqay hawl xasaasiyad ku kiciday madaxtooyada filla Soomaaliya taas oo sababtay in filla Soomaaliyana ay dib ka rogaal celido taas oo aan ku salayn karo filla Soomaaliya in ay la dhihi karo talaabooyinka meesha ka soo bilowdeen ay ku qaldaneed. dib dambana waxa waaye labadii qoloba inay dastuurkii iyo wixii wadanku uu ku heshiiyey inay ka habaabeen.
oo dantii iyo wixii loo egmaday inay gees mareen oo labadoodaba inay baal mareen moodaa marka hadda waxaa la oran karaa in maantay wadanka meel wanaagsan uu jooga oo laga qaban karo inkastoo markii kor laga eego hawl laga naxa ay tahay hadda waxaan leenahay in dib loogu laabto dastuurka hay-adihii dastuuriga ahaana loo madax baneeya howlahooda inay qabtaan wixii Soomaali kala hagi lahaa qof shacab ha noqdo iyo madaxweyne ha noqdo inuu yahay dastuurkaas buugaas buluuga in loo wada hogaansamo sidaasaan soo jeedin lahaa haddii xaaladan hadda taagan ay sii socoto maxaa ka dhalan karay kulatay xaaladan hadda taagan aniga fikriyan waxay ila eg tahay mid hadda sida maantay iyo xoogaha howlaha u degan yihiin waxaa la dhihi karaa mid meel wanaagsan ku socota haddii dhinac wanaagsan laga eego haddii laga eegana waxa waa isjiijiidkii maalmaha soo socday oo aan la kala roonaanin oo aan nin labada dhinac ka mid ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay dastuurka u hoggaansamin oo labadoodaba inay u soo laabtaan dastuurka taasaa un xal loogu heli karaa oo keliya waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya ra-iisul wasaare maxaan ku dhahaa maxamed xuseen rooble keliya haanu haysanaa wax jaanisa intaas haddii intaas lislaaf garan waayana meesha ay ku noqon doonto ma garanayo horta sidaan la soconno kiiska walaashay Ikraan Tahliil haddii dhimatay Allah u naxariisto haddii ay nooshahayna waxaan rajaynayaa in maaragtay kulley qof had ilaa haatan aan war laga hayn waa qof un gacan ka xaqdaran unba ay meel ku haysato ilaahay maaragtay inuu kiiskeeda maaragtay ummadda Soomaaliyeed u kala cadeeyo hadda waxaad moodaa ninkii raadin lahaa kiiska Ikraan Tahliil inuusan raadinaynin waa ra-iisul wasaaraha uu ka dhigtay oo keliya meel uu siyaasad ahaan uu ku gabado fuad halka maxaa u aragtaa xalka meesha yaalla keliya wuxuu yahay in loo ogolaado hay-adaha dastuuriga ah in loo ogolaado inay howlahooda gutaan maantay xukuumadda joogtana waxa waaye dastuurka inta uu ogolaaday in loo ogolaado madaxweynahana waxa waaye sidii uu xilalka qaar uu u wareejiyey inay u wareegsanaadaan ra-iisul wasaarahana iyo xukuumaddiisana inay ku talax tagaan waxyaabo aan loo idmanin ma aha marka waxaan soo jeedinaya waxay tahay in labada dhinacba ay intay bismillaahi yidhaahdaan oo ay isku tagaan marka koowaad ayagoo u hoggaansamaya dastuurka marka labaadna ayagoo u turahaya qaranka